الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkan waxaynu ku duubaynaa gabay la yidhaaho xeerta nabadda. wuxuu ka jawaabayaa gabay uu soo diray nin la yidhaaho abwaan suusle oo la yidhaaho xoor shini helay. gabaygaasi wuxuu ku jahaysan yahay wasiirka uu halqabsi uga dhigay wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan ee Salebaan xagla toosiyey. waxaa la yidhaahaa xoor shini helay magaciisa. gabaygana waxaa la yidhaahaa xeerta nabadda. taariikhta aynu maanta duubaynaa waa bishii 12 2005ka 2015ka 2015 weey. maalintuna waa maalin salaasa ah. inta aanan gabayga bilaabin jawaabta taariikh hordhaca aan ka sheekeeyo. suusle intaan ka ogahay taariikhdiisu waxa ay ku salaysan tahay 80kii taariikhdu markay ahayd raggii bilaabay gabayada qabaliga abuu ka mid ahaa. silsilad berigaa socotay oo daaroodka iyo saaqa dhex martay bay ahayd oo qabaliya ogaadeenka iyo dhulbahanta khaasatan. taariikhda daaroodka iyo isaaqana waxaa ka dhexaysa suugaan ballaadhan oo fac weyn oo ilaa 200 oo sannadood ku siman. waxaa ugu caansan oo hirgashay silsiladii ugu dheerayd ee gobol la odhan jiray. wuxuu ka mid ahaa suusle rag badan oo ogaadeen iyo dhulbahanto ahaa oo riyooday, oo gubo ku riyooday, oo sandalad ku riyooday, oo cali dhuux ku riyooday, oo bilaabay gabayada qabaliga ah. gabayada qabaliga uu bilaabayna waxaa ka mid ahaa sawdaba cayuunlow berberi daara madhan maaha sow dukaamadii tarandacay iyo daaski ibir maaha dirirtii goleed habar jecloy doobta haw ridine inkastay dariib cadi wadhnayd labada daamoodba anaa furay dagaalka inaad door ka dhaliseene ingiriiska caynaba dul yiili duubay gogoshiiyo diintaan ku dhaartay iyo allihii daayinka ahaayee dureemaduna way ololaysaa dooxadii guban. waxaa la yidhaha soomaalida waxa ku mamaadaa cunsur carab baa ka horeeya. marka uu sidaa lahaa waxba ma ay dhicin. dagaaladii baa bilaabmay, jabhadda iyo xukuumadda u dhexeeyey way socdeen. dagaaladii buu ka qayb galay suusle. gabayaduu kaga qayb galay waxaa ka mid ahaa ka sikada sabtii kibirtay baan soor la dhacayaa. aan halkaa idinku noqdee gabaygiisa hore waxaa ku jirtay allow yaa duqi cali ahaa dib u yar nooleeya. oo cali dhuux buu hibanayaa sida taariikhdu qorayso. taariikhdii ballaadhnayd ee silsiladii gubo oo lagu kala gar helay ayuu hibanayaa. gabaygii ugu horreeyeyna waxaa bilaabay cali dhuux. kii ugu dambeeyeyna isagaa lahaayoo markii uu inadage soo gabyey ayuu cali dhuux gabaygii ka jawaabi kari waayay inadage. wuxuu yidhi gun baanahay, garays baan xidhnahay, iyo golnaageeda jeeraan gamboolka iska rogo guudka iga saaran ogaadeenka noo soo gobyow waa garxaajidu. anigoo taariikhdan ka faa'iidaysanaya silsiladaa gubi waxay ahayd taariikh aada u ballaadhan. waxaan arkay rag dhalan xumaynaya oo been ka sheegaya taariikhda ah. 7 nin ayaa gubo iska lahaa. 2 nin waxay ahayd dhulbahanta, waxay ahayd cali dhuux iyo ismaaciil mire. 2 nin oo ogaadeena oo qamaan bulxan iyo inadage ay ka mid ahaayeen, iyo 3 nin oo isaaqa salaan carabay, maxamed fiin, ismaaciil bulaale. 7 nin bay taariikhdaa gubi ku salaysan tahay. ninka ku dara wax aan 7 ahayni waa nin taariikhda been ka sheegay. taariikhduna haddii been laga sheego dhadhan ma laha. way socotay. suusle gabayo badan buu kaga qayb galay dagaalka. markuu arkay dagaalkani dagaal dhammaanaya inuusan ahayn, markuu arkay dagaal ku jahaysan jabhad iyo dowlad ka dhexeeya inuu yahay, markuu arkay dagaal aan shacabka dhulbahante iyo shacab kale midda ku jahaysnayn inuu yahay, intuu qorigiisii daba jaariyaha qaatay ayuu dhabarka usii jeediyey. markii hore wuxuu ahaa raggii tanaxweeyey ee haddii la kuuriya baanay
wuxuuna isu ekaysiiyey ninkii la odhan jiray allaha u naxariistee aadan galaydh ee ka dambeeyey fidmadii caligeri ku colloobay. markii dambe caligeri isku jabayna wuxuu yidhi aadan galaydh warraddee qabaalkaagii furaysa lahayd. isagoo taa ka duulaya ayuu qorigiisii daba jaariyaha intuu barhka qabsaday markuu arkay gobollo badan oo laga qaxay oo haawanaya, markuu arkay rag isaga la ayni ahaa oo dagaalkii galaaftay, markii guushii uu ku riyooday uu arki waayey riyadiisii suuragal u noqon weyday, ayaa waxaa halgudhegiisii u dambeeyey u ahaa war qabaalkaagii furaysa lahayde. dar badan oo iyaga ka mid ah ayaa markii dambe ka shallaayay. waxaa ka mid ahaa khaliif xasan walah, waxaa ka mid ahaa abwaankii midhaha waaweynaa ee maaweel oo ay ku jirtay gabayadiisa ay ka mid ahayd iidoor waxaa lagaga diday magaca daarood iyo dowladnimaduu is yidhi doorku weyaga, iyagoo kufrigii soo diriyo gaala daba joogto oo dabiya baaruud sitoo inagu soo duulay. mar haddaan dariiqii fadhiyey laga difaacayay oo aan dadaal muujiyaan daagaga adkaystay, dayax dhacay habeendeedan ilaa waa ka daalacayay, duhurkiiyo dharaartii wixii weerar nagu daacay, dubnaxa hadduu igu yaal diini iyo kooshin waa daawanayseen sidii guri damaashaad. durbaankiinni waa eednay iyo dabagalkiinni iyo dihaal allaa baday, ninkaad daawo dhigataane waxba yaan la iisoo dambarin geel diracsadaye, waxba yaan dabaaladaha dhacay daara lay odhanne, dalqanibiri waa taa gashiyo daaman yariseede, istebera ilmaadariyaal duub kale xidhane. khaliif xasan walah baa ku jiray, ku dheeraan maayo, waan soo gaabinayaa. xagla toosiye ninkaasi suusle 19 wixii ka dambeeyey gabaygiisa muu aamusin, laakiin weji kaluu u yeelay. wuxuu ku jaheeyey madaxda faraha badan ee sharafta mudan ee ka mida dowladda somalilan buu gabaygiisii ku jaheeyo. door kastaba ha hadeena 25 sannadood wuxuu ahaa nin ka soo horjeeda. gabayadiisuna waxay ahaayeen 3 qaybood bay ahaayeen. waxay ahaayeen guubaabo iyo cay iyo cabasho, 3daasay isugu jireen gabayadiisu. ka soo gudub xagla toosiye wuxuu ka mid yahay ragga ugu firfircoon madaxda faraha badan ee dhulbahante. haddaan xuso isaga iyo ninka la yidhi cali sandulle oon halkan ka hambalyeynayo wasiirnimada. cali sandulle aad iyo aad waa 2 nin oo u jecel labadaa nin inay dadkii ay madaxda u ahaayeen wax ku celiyaan oo ay wax u qabtaan. halka uu dawo geeyey xagla toosiye gaadhay hore looma gardaadin. hadduu weerara geystay gadaal buu is ogaaday, shacab laysku gumaadiyo godob laysugu baaqiyo, nin qabiil ku gabraartay inaan meel lagu gaadhin. gadaal buu is ogaaday gacaltooyo hargeysiyo gurigii uu ku dhashay inuu gooni ka joogo. taladii guracnayd gogashii nabadeed iyo qaran buu uga guuray, waana laysu garaabay mid kalaa garab taalloo ergageysi ma diido. ka soo gudub waan soo gebagabaynayaa wakhtiga oo gaaban awgii. waxaan idiin bilaabayaa gabaygii la odhan jiray xerta nabadda. xagjirnimada suuslow warkii xalayta lay sheegay xagla tiirshe, kuma aadane e waa xasaradoone ma xasilo. adduunyada ninkii xuma ka raadshaayay xiqdi lagu abuuray, yaa ilaa xaawo soo jiraya xadhka hadibo. lama aasto iyo xuubka miinada ee xantii xasanaadka aakhiro, darbaan xawdka ka cabayna xantii waxaan hayaa kuguma jiro xiise nabadeed. xusbigii afweyne iyo markaad xamar u been sheegtay, isku xidhanka waagaad ahayd xulufadii gaani isxabeebintaadii, markaad cali u xiisootay aad xarafyadii guba ku jiray xubin togaalaysay, waagaad xusuustii kordheer xali ka sheekaysay xaraabaha colaadeed, markaad xamar u heensaysay xuftii hore awowgaa, markaad xawda kaga goysay raggii godobta beelka u xidhay xiiqi baa tahay. xumbadii gudhay yaad moodayseen xaashir nololeed, xabka duumo iyobay ahayd dheef xangeeyaha. injirihii gadoomiyo
markaad xaadho ka hadlayso harraan gocoshadaad iyo dabkaad xanan afuufayso xigga iyo nabraha dhiigga leh aad leebka ku xoqayso xagga yaga wixii naga dhintay iyo xaqa laylow hanuun adiga kuu gaara iyo xaal fog baa jira waxaad tahay mid xiradii duntay aan xogi u laabnayne sidii xila masayrtay yaa qalbigu kuu xub leeyahaye xinkii cali khaliif baad waddaa xasid koriwa hululayste idin qaybiya oo xamar u sii jeeda hadba nimaan idiin xeel furayn yaad ku xidhataane xasawdaraan idiin goynin yaad daba xadraysaane xagla toose waa niman lahayn xaniya duulduul igtadaa markhaatiya inuu xaas walwaal yahay xulub socodka idin daashaday ee xiiqda kugu beeray xabsiga iyo mugdiga aa gasheen yuu xallilayaa xanaanooyin badan buu dhisaye waad xaqiraysaa haysiniyo sool waxaa ka jira horumar xoog weyn xirfadaha aqoonta iyo biyaha loo xutubinayo xarakada balooniga socda iyo xaawiskiyo dheesha nin xaraar bannaystaad lahayd waa ku xidhayaa xiskii ningu ka guuray yaad tahoo xaytay maridiiye sidii xuur wadkii aragtay yaad xiinweysiisidaye anigu xabagle kuma sheegi karo xilifka daaroode xidigaha cambaashe iyo raggaa xilalka loo dhiibay xujo kuma aha ee waa miday xaqu lahaayeen waa niman dalkoodii xukuma oo xarraga nool waa niman ka xayndaabo dheer xaabsadoo kale hadduuse gurigu kugu xaaluf yahay waad xidigisaa sida geel kaliishii xumayd xirada weydaartay xabbaadh weliba meel bay degeen xulantidiinnii iyo xusulduub waxay ugu jiraan xoogso keligaaye xabaalaha garoowe iyo kuwii xaynka laga toogtay iyo xamar wixii idinku dhacay idima xaalay sida awr xadhkii goosatay oo xaabku celin waayey ama nugul dhashii xoortay yaad xanaf wareerteene xamxamti iyo dulliga aa qabtaan xaadiska iyo quudha xeryahay ka uugaamayaan xabawarkiidhii xara dheere xeebaha qandala xaaba iyo geeso xanja kuuma taal iyo laftaad xagan lahaydeeni haddaad beri ku xawxawsateen xalowga laysgooye xamaysay hashii labada geel xeeb u kala gooshtay uu bahalku xaga reydhigay yaad xanafsanaysaan xakabkiisu qarankii dubay ee xawdha kala goostay halkii xiita lagu gowracay yaad xaadir ku ahaydee xidhka waxaad la meermeeraysaa waxaan dibadeeda adduunyadan la kala xoogsaday xibashada gaadhay xirir madow yaad sidii xiidka hurdaa adaa jooga meel lagu xamdiyo diliyo xaaraan xusna ma laha aakhiro ninkii dheeg xalaashadaye xayaftoogo iyo guul la-aan yaysu keen xiga xasharka iyo qiyaamaha markii xaadir la isgeeyo xisaabtaadu waa jahannab iyo xayfo iyo naari xabadimaad la doondoonayso oo gogosha kuu xaadhay oo xalab qabow iyo baruur xamaga kuu saaray adna aad xinjira goobaysaa waa xujiya yaab xigtadiiyo dadkii wada dhashay yaad kala xergayseenee ha yeeshee xawaaraha adduun waa xilli uguur marunbaa sabaankii xumaa aad ka xayataa xunguguraha faalka iyo markaan dirirka xuuraamay xareed bariday iyobaan arkaa inoo da-ay xertii nabadda iyobaa fadhiya odayo xeel dheer xidhiirkii bulshadu ay lahayd way xasiliyeen xaska laga gur beeshii haddii xolo daqiiqeen xubeera iyo gacal baynu nahay xoon walaala ah maad garan xaquuqdu lahaa xil iyo jiiraan xangaruufo oo dubaqallayl way isku xagataaye xurgufteennu may dhaafi jirin xumo dirirteed xangaruufo oo dubaqallayl way isku xagataaye xurgufteennu may dhaafi jirin xumo dirirteeda xalwadaag xanaan iyo nafqayb dad isu laab xaadhan xulashada gayaanka iyo hablaha xaali iyo deeqa xafladaha arooska iyo barbaar xaafad ku cawaysa xeegaanta hoosiyo intii xidid la muuneeyo hadba waxaan xusuustaa inuu xeer gubeed jiray waxba yaanan xagalexiskii sii xorxoratayne xantadaada anigoo arka aad xeelli dirirayso hadba xabadkaaga haw dhigin warmaha xagafta jiilaale hadba gabay xajiinliyo colaad
haw xashaashiqine xagar sarada weyn iyo marqaan ha isku xurtayne xoqadahan niyada kaa dilay ee xiiqda kugu beeray xarbadhabashadaada iyo naftaad hawdka ku xasaysay xabaashaada keliga sidii xaashiha u qodin xabaashaada keliga sidii xaashiha u qodine xalay dhalay haddaad noqon lahayd maad xanibanteen xabashida lugdhuub soo wado iyo xaylaha u tegine ninna kaama xiga dowladda waa xil meerta ah xeegada ninkii dhalinayay xiis u dagataa iyadoo xag loo wada socdaa la isxiribayaa isxambaarku waa furan yahoo xaashadaa dhiman adba inaad ka soo xaadirtaa kuu xodxoda roon reeryaha la geedeeyey iyo xulo karuurkeeda waa adigan xayuugsamay sidii xunshadii bariye xifashada baruurtiyo hilbaa xamurka nooleeya inaad xabad barjada muudsataan kuu xawilayaa xisi ugama jeedo iyo inaan kuugu duur xule nin xayaaba kuu dayraya iyo xooti hay filine xariir iyo dhar baan kuu sidaa xidhasho waayeel aad xarunta somalilan ku xashiraadaa xal wanaagsan baa laga tagaa xay intaa tahaye xigaal iyo abtooya mid uun lagu xidhnaadaaye xigtadaada lama gowriyo iyo xaafid kuu maqane xilfalyahow wasiirkaaga waa laga xishoodaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم قبل وعسوي هذا وقت كان تاريخ تنمي كابان عريي عاو واسديد يلا تنكي بيش سقالات سنة كا لبكون يشانيه طبعك اسلو اسبوع عنهم بعد لكن عاو غهر رسدو ويسان دوبو قبل كان مقعيسو وحوشي نهلي wuxuu ka mid yahay silsiladii ii socotay oo magaceeda la oran jiray xaq la toosiye iyo xaq dir bismillaahir rahmaanir rahiim waan idin marinayaa dhageysi wanaagsan xaq la toosiyo gabay markaan u xusbadaynayo hadba kii la xiisaynayaan xaraf ku duugaaye nin walba xambuuleeyay iyo xog iyo taariikh adigana dhammaan waa xafiday tii lagu xulay xujo iyo dacwaan kuu sidaa aan xaddi lahayne xeerkiiyo ciqaabtaadiiba xaakim hor yaale xabaal iyo ninkeeday surran oo waa xaq geeriduye raggii ceebta kaa xidhi lahaa waa xag aakhiro xaajigii caddaan lama tuseen xoon midiidinahe xinna wuu ka dhiidhiyi lahaa xaaladdaa ugube xanaaq kululihii ina colaad oo xukumo beesha xirsi kuguma leeleeliyeen xero ma yeedhaane xafti waranka baaruud nin ogi wuu xantanayaaye xuluulaystuhu goyn lahaa xowlmariidada hurgun xiiray xiis iyo mixire xaashi iyo hiirad xildhibaanadii joofay baan xay midna ahayne xilkas iyo mageyniya garbood xaas walwaalmadhaye waa duul xaraan qaadwaliyo xaaba nooshahaye kuwa haatan kugu xeeran baan xaajagalahayn xabadkaa lagu dhigi lahaa meel xaraarine xasan iyo duraan kuma dhalin xubin la miisaane xodxodliyo cismaan baan lahaa waa xarigayaane labaduba inay ku xistiyeen baa xaqiiqo ahe xagtir iyo dhan buu kaa ahaa xamaqdi gaandaaye sidii xooma geel oo dhashay buu ku xigsin maalaaye xaskun buu galaa maalinta uu kaa xantoobsadee mana oga xanshaashaqa socdiyo xeesha dabataale amba kuma xaqirin maalintii aad xiimaya ahayde waataan xurmeeyay lahaa waa xornimo doone xubbigiiyo kalsoonida muddaan kuu xabeebsadaye nin xagaayo moodaan ahaa xaysgii oo da-aye xoor shiinni helay bay ahayd xuguguftaadiiye ileen xabag barshiya awlal baa xarafna ku yaalay ileen xabag barshiya awlal baa xarafna ku yaalay jeeroo mindida xiiraysaa xaabiso unuunka xidigaha ma eegaan wan weyn xaadirka indhuuye adiguna rag baad u xaglisaa kuu xabaal qode xabadaha kuwii dhalac wadnaha kaga xaraynayay xarakada shabaab iyo sidii xuutiga u dile miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaay arabsiyo xanuunkii daraad xaddi ku istaagtay ee uu xaraarada qalbigu sii xamili waaye xawayaankii cunay waa ogeyn xaydarkii magane miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaay sumalkii idaha xaylin jiray waa xamuurane
mar haddii xilliga haysimada xamilka loo siibo xaadhsiima loo liga hirdada xaynta mayracee xangaruufo lama doonayo iyo xagasho naageede xambaarada markii lala fuqiyo xamaga miidaanka halkii baashe lagu xoomayaad xaadir ku ahayde miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaaye miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaaye isagoo xafiis dawlad iyo xaruntii hoos jooga oo xaariska iyo gaadhka iyo xoogguba ilaasho nimankii fu'aad ku xafaray xaadiska u jiidhay miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaaye xarbigii iyo dagaalkii burce ee la isku xayraamay xamaamada yiroogiya markii xamaska loo qaatay nimankan xabado dhowro oo dhan waa xulkii qarane miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaaye hadday xeeriyaan dhaqanka waa la ysugu xidhmaaye nin xishoonayaa inan layaal wuu xushmayn jiraye ismaaciil baxaasuu qabiyi xaali kuma dayne miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaaye xinjirta iyo dhiiggii mataan waa xusuusnahay waatay xagaa hore dhigeen xagid ceel dhaabe abti kuma xurmaynaya hadduu xidid la noolaaye miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaaye rag kalaan sidii loogu xalay cidiba xaalayne xajiin godob labay wiiga tegay xaajisaad labee xalwaduga macaanaa kuwii xiiris idhi looge miyay adiga kuu xilanayaan waabad ku xigtaaye xilka qaranka saar baan lahaa wuu xejinayaaye xamar iyo kismaanyaan lahaa wuu xukumayaaye xara dheere xeebaha qandala xaabo iyo geeso meesha iyo xaafuu ninkan uga xadraynayey ee aan ninkan u xafladeen xawd la daba joogay ee aan xiriirta huwiyada ku xaragoonayey marunbay islaamo u xardheen xuubka caarade xaadhxaadhatiya buu u galay xabagle ii doore xiniinyaha lagaa jeex muxuu dhiiqa ku xamaartay xiniinyaha lagaa jeex muxuu dhiiqa ku xamaartay xaawalay hinaastiyo dhakool xadis ma dhaamaane labadaba xinkiiyo buuqu waa duul xasaradeeye xaaraan la kala boobayo xaynba la arkaayo markaasuu xabeeb qaylo dheer xiqay keligiiye isagiiyo xumboogii indhiyo xaabsadiiyo dawdag iyo xaaduqii shalay taleex nagu xasuuqaayey nin walba laf buu xaganayaa xaarwado agtaale cad waraabe ka xishoonayay xunsho la cunaane ximaar waliba waa soociya xaab hadduu hele miyaa aniga lay kala xigaa waa xamaal cadow xarumaha dhulkaagoo rag kale kugu xaduuraayo in sokeeye loo xaydan yahay waa xigma la-aane adigiiyo cambaashaha xargaga xaydha ka hiraabtay ee weli ka xarakaadaya waa xadgudubteene xawdheer ma gaangaambiyeen xiirani yimiye xudun iyo nagaad weyne iyo ximanka laascaano waatay xaraasheen nugaal xeedha goysyaduye adna hawd xoraysaa la yidhi oo xirsi u jooge markaad xuurahayd iyo haddoo xaadu ku cirowde halkii lagugu xaasaamin jiray xaasad haw noqone waxba hadalku iyo xawli dheer ila xawaarayne halka ay xuduuddeennu noqon aan ku soo xidho adoo tacabkii ciise ee xasilay ka xaja mooyaane aan xoolo booliya ku tegin xaramkii mooyaane xalaaloobi maysid oo waxbay kugu xambaareene mar haddaanad xeerkii tullimo igu xaq dhowraynin oo xagar sareero weyn iyo shaxdii xalay ka guuraysay oo cadowga kii ugu xumaayay ila xulufaysay xabashida lugdhuub soo wadiya xayle kaa mudane xidhiidhkeenna go'ay waa midaan xaligu laabnayne ragunbaad sidii xiin finiin u xakamaysnaane ka xareedi meel lagu xamdiyo xaniya laaluushka ka xareedi meel lagu xamdiyo xaniya laaluushka wiil xoorashiini helay halkaa inoo joogo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa abwaan yuusuf